kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah dadku waa iska daw biyo markay waayeen korontadii waayeen dhinaca u socda garan laayeen Ramadaan baa lagu jiraa soon baa lagu jiraa afur baa loo baahnaa suxuur baa loo baahnaa salaad baa loo baahnaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda Muqdisho oo wali kacsan ciidamo u dagaalamaya mucaaradka oo dhufaysyo badan ka sameystay xaafadda Cabdiqaasim oo uu degay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ciidamadii ugu badnaa oo halkaasi soo gaaray ciidamo hor leh oo isku fidiyay aagga isgoosyada dabka sayidka ilaa iyo kan bakaaraha iyo ciidankan oo ku hanjabay in ay weerari doonaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya haddaba waa sidee xaalka guud ee Muqdisho maxaa dadaalo ah oo soconaya si looga baaqsado dagaal kale oo uu dhiig ku daato maxaase ka jira in madaxweyne Farmaajo uu dalbaday in xabadda la joojiyo isla markaana wada hadal lala furo xubnaha mucaaradka ah xogihii ugu dambeeyay xaalka caasimadda ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah wararkeena kalena waxa kamid ah qaramada midoobay oo war culus ka soo saartay dagaaladii ka dhacay Muqdisho iyo xiisada dagaal ee wali taagan maxay qaramada midoobay ka tiri dagaaladii Muqdisho ka dhacay saacadihii la soo dhaafay waa samaxay fariinta u dirtay dhinacyada isku haya xamar iyo waxgaradka Muqdisho oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka laga hurinayo caasimadda iyo fariin culus oo ay u direen madaxweyne Farmaajo xilli bulshada Muqdisho ay walaac xoog leh ka muujiyeen xiisadaha dagaal ee magaalada ku soo kordhay qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana duhur isniina 26 bisha Afraad ee Abriil sanadka 2021 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taas nala fahantaane fadlan nala faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadiina idinka oo ku sheergareynaya baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeenna magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa wali laga dareemayaa xiisad dagaal iyadoo dhufaysyo fara badan ay ciidamo ka soo horjeedo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka sameysteen qaybo kala duwan oo kamid ah magaalada caasimadda Muqdisho haddii aynu ku hormaro ciidamada cadwa siyaasiga mucaaradka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa la sheegay in ay xirteen wadada dheer ee isku xirta isgoosyada kilomitir 4 iyo Tarabuunka ee magaalada Muqdisho waxa ciidamadan ay carro tuur dhigeen wadadaasi oo sii marta dalcadda Cabdiqaasim ee degmada Hodan iyaga oo gaadiidka ka celinaya halkaasi waxaa la sheegay in ciidamadaasi ay xireen dhammaan jidcadayaasha soo gala wadada Cabdiqaasim oo la sheegay in uu degay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale ciidamada mucaaradka ee ka soo horjeeda dawladda ayaa difaacyo kaga jira xaafadaha ku dhow wadadaasi oo uu xalay ka dhacay dagaal xoogan oo qaatay saacado aad u fara badan kaasi oo ay ka dhasheen khasaare kala duwan wararka ayaa sidoo kale intaasi ku sii daraya in ciidamo kale oo kamid ah kuwa ka soo horjeeda muddo kororsiga madaxweynaha ay iyaguna ku sugan yihiin inta u dhaxaysa dabka iyo sayidka iyagoo difaacyo kaga jira halkaasi waxaana lagu arkayaa halkaasi gaadiid dagaal oo aad u fara badan waxa ay sheegayaan ciidamada isku fidiyay isgoosyada dabka sayidka ilaa iyo dhinacaas isgooyska kale ee bakaaraha in ay iyagu halkaasi haystaan waxa ayna sheegeen in ay weerari doonaan mar waliba haddii aysan wax isbedelin ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mid ka mid ah saraakiishaas hogaaminaysa ciidamada ee halkaasi haysta ayaa warbaahinta la wadaagay in ay doonayaan in ay dagaal ku qaadaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ku doodayaan in uu qorsheynayo in muddo kordhin aan sharci ahayn uu dalka ku sii maamulo waxay tilmaamayaan ciidamadan oo aad u fara badan in ay haystaan isgoosyada sayidka dabka ilaa iyo isgooyska bakaaraha xaafadaha ee kale ee shanta geed ay qayb ka tahay iyagoo sheegay in halkaasi dhammaan ay iyagu ku sugan yihiin isla markaana ay difaac uga jiraan dhufaysyo ayay halkaasi ka sameysteen ma jirto dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya balse magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidamada mucaaradka ah xaaladda ayaa waxay tahay mid aad u kacsan waxaana markasta suuragal ah inuu dagaal dib uga qarxo maadaama labada dhinac ay wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo iska soo horjeeda si kastaba waxa la soo sheegayaa in ay socdaan dadaallo uu horkacayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble kuwaasi oo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisada taagan wararka uu helayo warqaad TV ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dalbaday in xabadda la joojiyo isla marhaantan uu amray in ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka soo ruqaansadaan meelihii ay kula dagaalameen ee ciidamada daacadda waa mucaaradka
madaxweynaha ayaa la sheegay in uu diyaar u yahay markan in uu wadahadal la furo xubnaha mucaaradka ah. waxa uu arrintan u xil saaray sida aan xogaha ku helayno ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble, waxaana laga dalbaday Maxamed Xuseen Rooble in uu ka shaqeeyo sidii wadahadal loola furi lahaa siyaasiyiinta mucaaradka ah. xogtu waxa intaasi ku sii daraysaa in Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha dalka uu xiriir la sameeyay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud, balse weli aysan ka soo bixin wax natiijo ah. dhinaca kale waxaa kulamo kala duwan ka wada filla Soomaaliya madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaana madaxweyne Farmaajo uu kulamo kala duwan la qaadanaya la taliyaashiisa gaarka ah si wax looga bedelo xaaladda adag ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay gashay. dhinaca kale haddii aynu fiirino isku socodka gaadiidka midka dadweynaha iyo goobaha kala duwan ee ganacsiga dhaqdhaqaaqooda, waxaa la dareemayaa in xoogaa soo kabasho ah laga dareemayo sidii shalay ilaa iyo xalay ee xaaladda magaalada Muqdisho ay ahayd. waxaa la arkayaa dadka oo isticmaalaya wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho. sidoo kale gaadiidka dadweynaha iyo mootobajaajka ayaa si caadi ah u shaqaynaya, iyadoo goobaha qaar ee ganacsiga ay furan yihiin, halka dadka qaar ay weli dareen ku joog yihiin, isla marhaantan ay ka cabsanayaan in mar kale dagaal uu ka qarxo magaalada caasimadda Muqdisho. balse si kastaba waxa dadka qaar ay isku socodyo kala duwan ka sameynayaan wadada dheer ee Maka al-Mukarrama ilaa iyo wadada lambar 4 aada, halkaasi oo ay dadku si caadi ah u isticmaalayaan. waxaana sidoo kale la arkayaa goobaha ganacsiga oo furan. xaaladda goobaha qaar ayaa waxa ay tahay mid aad u daran, maadaama dadka deegaanka ay iyagu sheegayaan inay cabsi xoog leh soo food saartay. dadka qaar oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in koronto la'aan iyo weliba sidoo kale cunno la'aan ay iminka wixii ka dambeeyay wajahayaan haddii xaaladdu ay sidaani ku sii socoto. waxaa xaafadaha qaar ka barakacay dadkii deganaa sida xaafadaha Baramuudo ilaa iyo xaafadaha ku teedsan isgoosyada Dabka ilaa iyo Bakaaraha, halkaasi oo dadka sheegayaan in ay naftooda u baqeen maadaama xalayto ay u adkaysan waayeen hubkii kala duwan ay isku adeegsanayeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa ka soo horjeeda muddo kororsi ay sheegeen inuu samaystay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. haddaba daawadayaal, wararka ku soo kordha xaaladda magaalada Muqdisho sida ugu macquulsan ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa haddii Allaha awoodda leh uu raali ka noqdo. iminkana isla wararkaas qaramada midoobay ayaa waxay war ka soo saartay xiisadda dagaal ee ka soo cusboonaatay magaalada caasimadda Muqdisho iyo dagaaladii saacadihii la soo dhaafay ka dhacayay caasimadda ummadda Soomaaliyeed. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay dagaaladii xalay ilaa iyo shalay ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, kuwaasi u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwo kale oo ka soo horjeeda muddo kororsiga. ugu horreyn qaramada midoobay ayaa cambaaraysay rabshadaha ka soo cusboonaaday magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale ay walaac xoogan ka muujisay isku dhacyada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa daacadda ah siyaasiyiinta mucaaradka ah. sidoo kale qaramada midoobay ayaa ugu baaqday labada dhinac inay isxakameeyaan, wax walibana ay ku dhameeyaan wada hadal iyo deganaan. bahda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay si aad uga walaacsan tahay isku dhacyada ka dhacaya magaalada Muqdisho. waxaan ku boorinaynaa dhinacyada oo dhan in ay muujiyaan isxakameyn, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay qaramada midoobay. qoraalka waxaa sidoo kale lagu sii daray rabshadu xal uma ahan ismarwaaga siyaasadeed ee hadda taagan. waxaan si degdeg ah ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada in ay si dhaqso ah dib ugu bilaabaan wada hadallo degdeg ah. hadalka ka soo baxay qaramada midoobay waxa uu ku soo beegmayaa xilli maanta xaaladda Muqdisho ay yara degan tahay kadib dagaaladii shalay ilaa iyo xalay ka dhacay gudaha caasimadda, iyadoo labada dhinac ay weli isku horfadhiyaan goobihii lagu dagaalamay, halkaasi oo laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamada ka soo horjeeda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, isla marhaantana daacaddu ah siyaasiyiinta mucaaradka ah oo iyagu sheegay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay weerar ku soo qaaday. xalayto ayaa waxaa dagaal xoogan uu ka dhacay wadada Cabdiqaasin oo la sheegay inuu degay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. sidoo kale dowladda ayaa la sheegay inay weerartay xerada Miranaayo halkaasi oo uu degay sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya. ugu dambeyntii waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Muqdisho waxa ay dalbadeen in la soo gabagabeeyo colaadda laga horinayo magaalada caasimadda Muqdisho. waxgaradkan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxa ay sheegeen in nabaddu ay tahay muhiim, isla marhaantana iyagu haddii ay yihiin shacabkii Soomaaliyeed aysan xamili karin in korkooda lagu dagaalamo, isla marhaantana siyaasiyiin dana gaara leh
ay dushooda ku dagaalamaan. Waxa ay ka codsadeen dhinacyada isku haya magaalada Xamar ee isku diidan amaba isku fahmila siyaasadda in ay xaaladda dejiyaan isla marhaantaana ay wada hadlaan wax walibana wada hadal lagu dhameeyo. Dadka Muqdisho ayaa walaac xoog leh ka muujinaya xaaladaha ee ku soo kordhay caasimadda ee ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho kadib markii shalay ilaa iyo xalay magaaladu ay gashay jawi ka duwan sidii hore oo dhinaca dagaalka ah, maadaama ciidamo fara badan oo ka tirsanaa dowladda Soomaaliya ay ka goosteen dowladda isla marhaantaana ay ka soo horjeesteen madaxweyne Farmaajo ay sheegeen inuu doonayo in dalka si xooga uu ku sii joogo. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkan war la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.